waxaa magaalada muqdisho booqasho ku yimi madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka casho sharaf ugu sameeyey. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre iyo madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed filish. madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay iska xog wareysteen xaaladaha guud ee dalka, amniga iyo sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada dib u dhiska dalka. waxay madaxdu sidoo kale ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa wada shaqaynta heerarka dowladda, heer federaal iyo heer dowlad goboleed. waad mahadsantihiin.